madashani oo ahayd madal bilan boqoran oo badiba kulmisay haldoorka salaadiinta cuqaasha aqoon-yahanka iyo dhalinyarada beesha yoon Ismaaciil ayaa ujeedkiisu ahaa gabagabada shir in muddo uga socday beesha degmada Bool ee gobolka Zool shirkana ayaa ujeedkiisu daaranaa inay beeshu kaga tashato aayahooda waxaana beeshu halkaasi kaga dhawaaqday inay mar walba diyaar u yihiin inay ka shaqeynayaan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaamada ay beeshu degto waxaana sidoo kale ay dawladda ka codsadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ugu soo qabtaan dhacdooyin soo noqnoqday oo ka dhacay deegaamada degmada Ceerifayn waxaana ugu horeynba halkaasi laga akhriyay go'aamo ay beeshu ka soo saartay shirkaasi waxaana hadalka u kala dambeeyay madax dhaqameedkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay shirkaasi mideeye dhamaantoodna waxay carabaaben inay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka shirkaas waxaana lagaga hadlayay danaha yoon Ismaaciil shirkaas oo ka socday degmada Bohol qodobadii ka soo baxay baan halka sheegi doonaa qodobka koowaad waa nabadgelyo in la adkeeyo nabadgelyada guud qodobka labaad in ay beeshu ka sugayaan dawladda inay sida ugu dhaqsaha badan uga hawl gasho una soo qabtaan dadkii dilalka iyo dhaawaca ka geystay dulmadoobe darar weyne iyo ceeryaan taas oo ku salaysan heshiisyadii hore loo galay ee dawladdu garwadeenka ka ahayd qodobka saddexaad inay dawladdu dhammaystirto heshiisyadii nabadgelyada ee hore loo gaadhay wixii ka dhinaa qodobka afraad in deegaamada beeshu degto ee kala gobolada Sool iyo Sanaag wixii mashaariic horumarineeda laga fuliyo mid dawladdu fuliso iyo mid hay'adeedba qodobka shanaad inaan la isu soo gelin oo cid waliba halka ay joogto ku sugnaato inta xaaladdu sugnaanayso oo la kala joogo goobaha hadda lagu sugan yahay sidaa darteed dhulkoonnamada weer la isku naco naadimo aqaane dadka waxaan isnoqonnaa midkay neeftu qabataaye waxa la oran jiray Sacad Yoonis waa fudud yahay oo waa gacan fudud yahay oo marka wax la yeelaabuu iska ortaa ummadda Soomaaliland iyo Soomaali guud ahaanba iyo islaamka ilaahayba waxaanu u sheegaynaa afar dil oo iminka iska kala dambeeyay oo uu ugu horeeyay ninka adimo ceeryaamo lagu dilay ilaa maanta inaynu ka fadhino oo sabir aynu ku fadhino dawladda marka waxaan leenahay dawladay dawlul amrigii dalka idinka ah cidda laga sugayo inay wax qabatona waa idinka waxaanu ku tashanay nabadgelyada guudna inaanu siday tahay u adkayno cidda naga maqan iyo cidda ay nagaga maqan tahayna xukuumaddii wax noo qoraalka nagu dhex joogtay ee dadka u dhexdahayd waxaanu ka sugaynaa inay fuliso mid dawladdaanu sheegaynaayo dee dhimashada iyadaa la sheegay ee faraha badan waxqabadkeedii dawladdu waa ka sugaynaa wuxuu ahaa shir nabadeed iyo tala wadaag ayuu ahaa yoon Ismaaciilla danihiisa iyo axwaashiisa ayuunbuu kaga tashanayay waxaan filayaa maanta waa la arkaa waxaan leeyahay dawladda xukuumadda iyo yacni beeluhuba dee haddii waan geliyeen yoonis Ismaaciil inuu samirkeedana leeyahay haddii gacan fudayd lagu xaman jiray Somaliland daraf ilaa daraf waxay eegaysa markii lagu dhawaaqay yoon Ismaaciil shir ku dhawaaqay waar shirkii aanu ku dhawaaqnay Somaliland nabad baanu ku dhawaaqnay nabad baanu ku baaqnay cid kasta oo wax naga dhaxeeyaan inaanu walaalnimo islaamnimo inaanu hayno iyo nabad baanu ku baaqnay tiraba 4 jeer baa nala dilay oo waxa weeye dilna loo geystay maanaan aarsa kari waayin laakiin waxaanu ognahay halka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dhigay dilka iyo dhiigga qofka muslimka ah horta waxaan leenahay Soomaaliland waa nabad baanu haynaa colaad ma hayno beelana ma hayno xabadna ridi mayno diyaar hadeeru ma nihin iyadoo deesanka nala ka galiyo mooyee laakiin balaayad waa naqaanaayo dee Sacad Yoonis baan mauna waxaan leeyahay dawladda waxqabadkeeda aad baan u dhaliilsanaa wacadkii la qaatay iyo dadkii saxeexay ee isugu yimi ee Somaliland ka koobnaa salaadiin lahaa xukuumad
ummad lahaa waayeel cuqaal lahaa culimaaudiin lahaa waxaan leedahay war wixii aad saxeexdeen ee ku ballanqaadeen ma been bay ahayd waxaan kale oo sheegaya oo aanu go'aansannay oo weligayaba u joognay inaannu ahaano cidda aan wax weerarin haddii eebba xugmaayo naftooda iyo maalkooda wixii ku soo duula iska daafaca shirka mideeye ee yoonis ismaaciil qodobadii ka soo baxay halkaasaa laga akhriyey nin welibana waa maqlayay taladii ka dambaysay waayeelkii iga horreeyey ee cuqaasha iyo jiifafka u badnaa ayaa sheegay yoonis ismaaciil reerka la yidhaahdaa waa ardaa garxajis ka mida wuxuu gaadhay garxajis markuu shiro wuxuu gaadhi jiray buu gaadhay ee lagu yiqiin buu gaadhay garxajis shira oo aan wanaag ku shirin oo ku soo gabagabayn iyo nabad lagama sheeg ka qaadan kanina waddadii garxajis maray buu maray reerka dawladda iyo waxaan leeyahay idinkama hayno dee waajibkii ama dawladeed ama reernimo waxa weeyaan saluug weyn baa nagu jira waayo 3-4 dhacdoo isxigay oo dhowr bilood ah ayaan isxakamaynaynay oo qaadanay maxaan ku raahday inaan sugno waxaan u sheegayaa yoonis ismaaciil magaca shirkan baxaya mideeye la yidhaahdo dee in midaynta lagaga dhabeeyo saca yoonis midaynta magaca uu qaatay uu ku midoobo qolaada halkaa ka dhacday ee nabadeedii dib waa soo xidheen heshiiskeedii aa qorteen waxa weeye maantana way soo noqotay waxaa ka qabateen oo gacanaa ka geysateen laba qodob baa naloo ku ducaeyey shirarkii ceelafweyn ka soconaya fara badnaa biciidana meel baa loogu ducaeye waana wada joognay sacad yoonisna meel baa loogu ducayey biciida waxaa loogu ducaeyey war dilkan gacanta marka ugu horraysa ku horraynaysana dadka inta allaysaan ma idinka ducayna haabayada waa looga ducayey ilaahay kuma doojin innagana waxaa laynooga ducayey warka daba cararka markiiba mid qambalaf kaga siinaysa ma idinka ducayna haabaynu nidhi ilaahay waa aqbalay marka hore shirweynahan mideeye ee yoonis ismaaciil ee aynu isugu nimi in ilaahay inoo ansixiyo oo kii waaraa la ka dhigo aamiin dhaha in ilaahay boggeenna burcad isu mariyo aamiin dhaha shirkii muwaafaqa yeesha ee tis qaada ee aynu ku shaqayno ee aynu ku midowno indhaha عبد الرجال محمد CBA ceelfoyn